Gabar Sacuudiyaan ah oo 35 jir ah waxayna ka shaqaynaysay iskuul ka mid ah iskuullada dugsiyada hoose dhexe. Waxay guursatay nin dhalinyaro ah oo da'deeda ah, mana aysan uur qaadin muddo 2 sano ah. Ilaa iyo sanadkii saddexaad ay ugu bishaaraysay dhakhtaraddu inay xaamil tahay, waana ay ku faraxday arrintaasi dabcan. Markii ay ilmaha dhashay kadib ayaa ninkeedii waxa uu go'aan ku gaadhay inay u keeno gabar shaqaale ah oo reer Aasiya ah. Gabadhaasi oo ugu talagalay inay iyadana caawiso, ilmahana ay la barbaariso. Ilmahana waxa uu u bixiyay Maxamed. Waxay ahayd laakiin gabadhan shaqaalaha ahi mid aan muslimad ahayn. Fasaxa kadib, haweeneydii waxay u laabatay iskuulkii. 3 bilood kadib, markay iskuulkii u laabatay, waxa ay la yaabtay dhimashada Maxamed. Maxamed oo jira 4 bilood. Mar walbana gabadhan shaqaalaha ahi hooyada waa ay u qalbi celin jirtay, wayna la hadli jirtay iyada oo mar walba u sheegaysa inay isdejiso, xaaladuna ay hagaagi doonto. Marnaba kama aysan shakiyin hooyadani in gabadhan Eeshiyaanka ahi ay gacan ku leedahay dhimashada Maxamed. Muddaa socotay. Mar labaad ayayna hooyadii macallimadda ahayd dhashay wiil kale. Haddana mar kale ayay waxay damacday inay u magacaawdo Maxamed, waanay u bixisay Maxamed. Iyada oo hooyadani ay fikirro badan oo dhinaca nolosha madow ah ay haysatay, haddana Ilaahay ayay tala saaratay. Bil qura kadib ayayba waxay la naxday inuu dhintay isna. Arrintaasi shaki weyn ayay dhalisay, waayo dhakhtarka ayaa waxa uu sheegay in dhimashada ilmahani uu yahay qadaha iyo qadarka Alle. Waxaa gaadhay gabadhan murug aad u weyn, Ilaahay ayayna u sabirtay. Sidoo kale gabadhani haddana kama aysan shakiyin haweeneydii shaqaalaha u ahayd xataa hal daqiiqana, waayo haweeneydan waxa ay daacad u ahayd shaqadeeda. Hal shay oo dhaqanka waxyeelayana ma aanay samaynin. Bilo kadib, haweeneydii macallimadda ahayd haddana mar saddexaad ayay noqotay xaamilo. Markanse haweeneydii macallimadda ahayd waxay la yaabtay gabadhii shaqaalaha ahayd oo dalbanaysa inay dalka Sacuudigaba ka tagto, waayo hooyadeed ayaa xanuunsanaysa. Soo laabashana ma aysan sheegin. Haweeneydii ayaa waxay dalbatay inay la sii joogto ilaa iyo gabadh kale oo shaqaale ah ay ka helayaan, si ay ugu tababarto shaqada guriga. Markii gabadhii shaqaalaha ahayd ee cusbayd timid, ayay 1 isbuuc tababar siisay. Dabadeedna macallimaddii ayaa waxa ay raacday gabadhii shaqaalaha ahayd suuqana waa ay u raacday, si ay ugu soo iibiso hadiyado iyada iyo qaraabadeedaba. Mana aysan u oggolaanin in jeebkeeda ay ka isticmaasho wax lacaga. Gabadha shaqaalaha ee cusubi waxay macallimadda u fiirinaysay si yaab leh, iyada oo eegaysa waxa faraha badan ay siinayso khaadimadeedii hore. Iyada oo haweeneydii shaqaalaha ahayd ay diyaarinayso shandadaheeda, waxay aragtay gabadhii shaqaalaha ahayd ee cusbayd oo dhankeeda u soo socota. Markii ay midig iyo bidix iska fiirisay, albaabkana ay xidhatay, waxay ku tidhi macallimaddii, waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego. Ma garanayo waxaan ku idhaahdo adiga, laakiin ii waran. Hadda ka hor miyaad ubad lahayd? Macallimaddii ayaa tidhi, haa, 2 wiil ayaan lahaa oo mid waliba uu dhintay. Gabadhii shaqaalaha ahayd ee cusbayd ayaa waxay ku tidhi, miyaad garanaysaa sababta 2daada wiili ay u dhinteen? Macallimaddii waa ay naxday. Si khatar ay ku jirto ayay u tidhi, ii sheeg, maxaad doonaysaa inaad ii tidhaahdo? Markii aan arkay sida wanaagsan aad ula shaqaynayso gabadhan shaqaalaha ku ahaan jirtay iyo hadiyadaha aad gabadhan u iibinayso, ma aanan awoodin inaan u dulqaato arrintaasi, waayo anigu waxaan ahay qof muslin ah. Waxayna ii sheegtay gabadhan shaqaalaha ku ahayd, haddii aad doonayso inaanad ubadka korin ama aadan dhaqaalaynin, inaad disho, sidaan aniguba hadda ka hor yeelay. Iyada oo ay intaas u sheegtay, iyada oo weliba u sheegtay inay ku mudday irbad sun ah maskaxdooda
mid kastaba ma aysan dhammaystiran shaqaalihii cusbaydi warkeeda. Macallimadii ayaa qaylisay iyada oo madaxa iska garaacaysa, waxayna ka soo toostay hurdo aad u xun. Durbadiina waxay gashay xaalad nafsi ah. Dabadeedna waxay u yeedhay haweenaydii baxaysay, iyada oo bilowday inay disho, si xunna u disho. Waxay ku cadhootay gabadhii xataa u soo warisay, tii horena waxba ma aysan qiran. Waxayna u shakiday inay uga murugaysan tahay sida ay hadiyadaha badan u siinayso. Markii ninkii yimina waxay u sheegtay dembiga ay gashay gabadhii shaqaalaha ahayd. Labadii shaqaale ayuu wuxuu geeyey xarunta booliska ee dembi baadhista. Laakiin askartii ayaaba dembi dusha ka saartay macallimadii, iyada oo ay askartu sheegayso in aanay wax caddaynana ku haysan oo sugan, haddana ay garaaceen gabadhii shaqaalaha ahayd. Waayo waraaqaha dhakhtarku waxa ay sheegayaan in ilmuhu ay u dhinteen sabab aan la garanaynin. Sidaas daraaddeeda, macallimadii waxay guda gashay inay ka tagto dugsiga si ay firaaqo ugu hesho korinta ilmaheeda soo socda. Weliba aanay kaashanin gabadh shaqaale ah oo dambe. Waxayna ku kaaftoontay intii dhib ee gaadhay. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.